madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa fariin hambalyo iyo dardaaran ah u diray dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta shaqaalaha adduunka. Munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May waxaan ugu hambaleynayaa dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed ee maskax iyo muruqba geliyay dib u dhiska iyo horumarinta dalkeena. Waxaan xasuusanahay dadaaladii wax ku oolka ahaa iyo doorkii taariikhiga ah ee shaqaalaha Soomaaliyeed ay ku leeyihiin sooyaalka dalkeena, iyagoona saldhig u ahaa halgankii xornimo-doonka iyo aasaaskii qarannimadeena. Madaxweynaha ayaa qiray shaqaalaha Soomaaliyeed inay ku shaqeeyaan duruufo adag oo kala duwan, ayaa haddana waxa uu ku ammaanay dadaalka iyo howlkarnimada ay ku shaqeeyaan. Inkastoo shaqaalaha Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan duruufo adag sanadihii la soo dhaafay, haddana waxay muujiyeen howlkarnimo iyo dhabar adeeg iyagoona fashiliyay yoolka argagixisada Al-Shabaab ee ku aadan kala dhantaalidda rajada iyo yidiilada shacabka Soomaaliyeed. Waxaan ka tacsiyanayaa waalidiinta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee maskaxdooda iyo muruqooda iyagoo u adeegaya dalkooda iyo dadkooda ku nafwaayay falalkii ay argagixisadu soo maleegtay. Waxaan dardargelinaynaa dadaaladeena ku aadan xoojinta iskaashatooyinka dalka, ururada shaqaalaha iyo ururada bulshada rayidka ah si aan u adkeyno xuquuqda shaqaalaha, horumarka iyo wadajirka ummadeena, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Xamse Kaafi Axmed, wararka telefishinka caalamiga ee GBC.